shaqaalaha jaanib ah muddo 4 sano ay haysatay balcadadeed Soomaaliyeed laguna haystay qayb ka mid ah xeebaha gobolka Mudug ayaa maanta si toos ah loogu dhoofiyay magaalada Gaalkacyo sida faafaynta warkan inoogu eegso wariyahayaga Firdawsi Maxamuud Sahal oo noogu soo dirtay magaalada Gaalkacyo. shaqaalahan ajnabiga oo tiradoodu gaaraysay 26 ruux oo kala dhashay wadamada India, China iyo Bangladesh ayaa waxa muddo ka badan 4 sano afduub ahaan ugu haystay xeebaha gobolka Mudug kooxaha burcadbadeeda Soomaalida kadib markii shaqaalahan iyo markabkii ay saarnaayeen ay ka soo afduubteen biyaha badweynta Hindiya sanadii 2012 laastayaashan oo ay markay gacanta ku soo dhigayeen kooxaha burcadbadeeda Soomaalida ay tiradoodu gaaraysay 19 ruux ayaa waxa geeriyooday 3 ruux oo ka mid yahay kabtaankii markabka intii ay ku jireen gacanta kooxaha afduubayaasha wada hadallo iyo dadaalo dheer oo ay galeen waxgaradka iyo culimada gobolka Mudug ayay sheegeen inay ku guuleysteen in muddo dheer kadib ay ku qanciyaan kooxaha afduubayaasha inay xorriyadooda dadkaani dib u siiyaan sida uu sheegayo Sheekh Cabdiwali oo ka mid ah culimada gobolka Mudug. sidaan ognahay ama hawsha aan ugu jirnay wax lacag oo madax furasho lama seenin laakiin waxyaalo yar yar oo ma taqaana adiga waad garanaysaa 6 sano la hayay marka deynta kaliya xataa waxa ku galay lacag ilaa 3 milyan marka wax yar oo macnaha oo qayb yar oo la yiraahdo cuntadii raashinka ku xisaabsan baa la siiyay waxayna ku mahadsan yihiin UN hadda baan ku wareejinaynaa waa 26 qof oo nabad qabta ayagana hadda maamulkan hadda ku wareejinaynaa marka hadii Ilaahay ku runyahay sidaas aan ku soo wareejinay oo ku soo wadnay oo dadkii iyo dadweynaha iyo shacabkii iyo beeshii mid ka mid ah dadka afduubka loo haystay ayaa isagoo ka duulaya garoonka Ishaako ee magaalada Gaalkacyo waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu dib ula midoobo ehelkiisii muddo dheer kadib waxaana maanta loo duuliyay dhanka magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya si halkaasi wadamadoodii loogu sii gudbiyo. For now, because we are been 4 years in 8 months in Somalia, and now I'm so happy. Even when I call my family, they're so happy. They're crying, tears of joy. So we can celebrate it with my family. So just a simple celebration. Before that, we need to thanks to the God, and after that, we together. That's it. Thank you very much. Firdawsi Maxamuud Sahal, warbaahinta SBC, Gaalkacyo.